ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble oo khudbad u jeedinayay xildhibaanada golaha shacabka ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka amniga iyo waxqabadka xukuumaddiisa ee boqolka maalin. ra-iisul wasaaraha oo ka hadlayay arrimaha doorashooyinka ayaa waxa uu sheegay in xukuumaddiisa ay dadaal dheeraad ah u gashay sidii dalka ay ugu dhici lahayd doorasho qof iyo cod ah, inkastoo ra-iisul wasaaruhu uu sheegay in arrimahaasi ay caqabado ka yimaadeen. waxa uu ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ka sheekayay shirarkii looga hadlayay arrimaha doorashooyinka ee ka dhacay meelo ka mid ah dalka. waxa uuna sheegay inuu rajaynayo in la fuliyo heshiiskii Sebtembar 17. dhinaca kale ra-iisul wasaare Rooble oo ka hadlayay amniga ayaa waxa uu sheegay in xukuumaddiisa ay dejisay istiraatiijiyadda amniga doorashooyinka. waxa uuna intaasay ku daray in dalka aan la gelin khalkhal amni, isagoo ka hor hadlayay baarlamaanka ayuuna arrinkaasi sheegay. ugu dambeyntii ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa shacbiga Soomaaliyeed uga baaqay in meel ay uga soo wada jeestaan sidii loola dagaalami lahaa cadowga dibadda iyo kan gudaha oo uu sheegay in khalkhal badan ay qaranka ku hayaan. gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya mudane Cabdi Xashe Cabdullaahi ayaa soo dhaweeyay soo jeedinta dowlad goboleedka Puntland ee ah in shirka 15 bishan February 2021 lagu qabto magaalada Muqdisho, halka madaxweyne Farmaajo uu horey uga baaqay in kulankaasi lagu qaban doono magaalada Garowe, inkastoo Puntland ay diiday in Garowe lagu qabto shirka 15 bishan uu iclaamiyay madaxweynaha Soomaaliya. gudoomiyaha waxaa kaloo uu ku baaqay in la ilaaliyo nabadda iyo xasiloonida dalka iyo shacabka Soomaaliyeed. war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha aqalka sare ayaa lagu sheegay in shirkaasi gudoomiyuhu uu doonayo inay goobjoog ka ahaadaan ururada bulshada rayidka ah iyo beesha caalamka. sida aad la wada socotaan, waxaa dhammaaday muddo xileedkii madaxweynaha iyo xubnaha baarlamaanka iyada oo aan heshiis buuxa laga gaarin qabashada doorashooyinka heer federaal. saamilayda siyaasadeed ayaana ka wada qaybgelin shirarkii ay isugu yimaadeen madaxda dowlad goboleedyada, kuwa federaalka iyo gobolka Banaadir. arrimahaas oo dalka geliyay xaalad cabsi, ayuu yiri gudoomiye Cabdi Xashe Cabdullaahi oo war qoraal ah ka soo saaray xafiiskiisa. ugu dambeyntii gudoomiyaha aqalka sare Master Cabdi Xashe Cabdullaahi ayaa qoraalkiisa ku sheegay inuu taageerayo go'aan walba oo lagu badbaadinayo dalka iyo dadka Soomaaliyeed, kaas oo ay soo saareen murashaxiinta xilka madaxweyne, dowlad goboleedyada, kuwa federaalka, bulshada rayidka ah iyo beesha caalamka. qoraalka ka soo baxay gudoomiyaha aqalka sare ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli loo ballansan yahay in mar kale la qabto shir u dhaxeeya madaxda dowladda federaalka ah ee waqtigooda uu dhammaaday, maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir, kaas oo uu horey uga baaqay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. sida hadda muuqatana waxa ay u dhowdahay in shirkani uu ka dhaco ama uu ka dhici doono magaalada Muqdisho. dowladda wadanka Kenya ayaa mar kale ku celisay inaanay faragelin ku haynin arrimaha Soomaaliya. wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Kenya oo ka hadlaysay kalfadhiga 978 ee golaha nabadda iyo amniga midowga Afrika ayaa sheegtay in marna aanay faragelin arrimaha gaarka ah ee Soomaaliya, balse waxay sheegtay inta bedelkeeda ay ka qayb qaadanayaan amniga iyo horumarka Soomaaliya maadaama ciidamada wadanka Kenya ay ka mid yihiin AMISOM. bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaana lagu sheegay in faragelinta sheegayso dowladda Soomaaliya ee ka imaanaysa wadanka Kenya ay tahay mid mas'uuliyad xumo, isla markaana warkaasi uu yahay mid been abuur ah. Kenya ayaa hoggaanka Soomaaliya ku sheegtay mid fashilmay. joogitaanka ciidamada Kenya ee Soomaaliya kaliya ma ahan dhiirigelinta baahida loo qabo in la xoojiyo nabadda gobolka iyo qaab dhismeedka amniga, laakiin waxa golaha amniga ee midowga Afrika iyo jimciyadda qurumaha ka dhaxaysaba ay ku midaysan yihiin in amniga Soomaaliya la xoojiyo. cunaqabataynta Soomaaliyana waxay ka imaanaysaa beesha caalamka ayaa lagu yiri war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska nabadda iyo amniga midowga Afrika. Kenya ayaa waxa sheegtay in mar walba ay danaynayso in Soomaaliya ay kala shaqeyso arrimaha amniga iyo horumarka. dowladda Soomaaliya ilaa iyo hadda kama aanay jawaabin hadalka ka soo yeeray wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Kenya. hadalka ka soo yeeray dowladda wadanka Kenya ayaa waxa uu imaanayaa iyada oo bisha Maarso ee soo aadan maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ qorshuhu uu yahay in la dhageysto kiiska dhinaca badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya.